soo dhaweynaya waxaan ka ambaqaadaya halkii uu doctorku dhigay doctor Bulxan oo khubarada waaweyn ee Soomaaliyeed kamid ah awr buu yiri oo nin intuu ku xiriiriyo kii u dambeeyay ayaa arrimihii negotiation ku ay noqdeen oo way maaraysanayeen buu yiri horta tiid halkan ay ka muuqataa halkan aynu fadhino waxa la soo fadhiisiyay afar qof oo Soomaaliland ka socda iyo wadaad koonfurka yimi oo markay dhameeyaan uu taxliilinaya waa awrkii uu doctorku inoo sheegay malaha halkan aanu ka soo arkeen isagu dhaxdu ku jiraa waxaan aaminsanahay mawduuca aynu ka hadlaynaa horta anigu wasiirka dastuur ahaan idinla hadli maayo waxaan idinla hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed waxaan idinla hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland oo arrinta aynu ka hadlaynaa waa arrin in wada taabanaysa waxa laga hadlayaa xal u helidda mushkiladda Soomaali haysata barkeed xagga iyaga markaanu ka soo eegno arrin la dhaylsan kara ma in waxaan leeyahay qolooyinka Soomaaliland ka yimi inta qolooyinka iyaga dhankan jooga wada xaajoodku ama xilligii goodaxiyaha soo bilaabman iyo madaxweyne Sheekh Shariif ama haatan guddi hal la aasaasay uu inagala joodo professorku muddo waa socdeen wayna socon doonaan in muddo ah waayo arrinta laga wada xaajoonaya laga wada hadlaya arrin basiida maaha mararka qaarkood waxa ku soo baxaysa dhanka koonfurta markaad eegto in la dhayalsanayaba qolooyinka Soomaaliland sida ay arrinta u dhigeen arrintu uma furuda oo inay dictation iyo qofkaasi iman maayo iyo waxyaabaha hoose ku meereystaan maahe waxay ahayd inay qadiyado iyo mabaadi keenan miiska haddii aan bal hoga tusaaleeyo waxyaabaha aan aaminsanahay in loo baahan yahay inay isbedel ku dhaco si awrkii u horeeyay awrka dambe looga furo Soomaaliland gudaheeda waxa looga baahan yahay in uu ka yimaado isbedel koonfur iyo muqdishona waxa looga baahan yahay inuu isbedel ku dhaco balanta koonfurta ku horeeyo dawladdan hadda anigu aan qayb ka ahay iyo kuwii ka horeeyayba waxay ku dhalanayeen xaalado adag xataa dimuqraadiyaddii oo hana qaaday oo one person one vote weli may hana qaadin waxa madaxda qaranka u sarreysa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo annagaba iyo xildhibaanadaba lagu doortaa hanaan qabaliya oo lagu ansixiyaa xisbiyana ma jiraan halkeeba awood u leh inay u cadgoyso Soomaaliland ama wuxuu ogolaato doorka muxuu yahay baarlamanku doorka xukuumaddu muxuu yahay doorka madaxweynuhu muxuu yahay waad ogtihiin duruufaha iyo xaaladda dawladdan lagu soo yagleelay marka halkan naftarkeeda position cadcad oo baniyaala waa in laga helo dawladda Soomaaliyeed si ay ula xaajoto Soomaaliland naftarkeeda waxa loo baahan yahay in laba ilaa hadii kala wada hadalba inay soo raadiyeen maahe laba aragtiyood oo la isbarbar dhigi karo inay ka jirto ayaa loo baahan yahay waa hadii aynu rabno inaynu ka midha dhalinno wada hadalladoo jiitama oo 10 sano iyo 20 sano sii socda waxay ka turjumayaan in boqolaal kun oo da'yara oo ku nool Soomaaliland ay naftooda biimo u geliyaan badaha waa meesha loogu badan yahay xagga markay noqoto migrationka malaha markii nabadii iyo waxbarashadii iyo wixii kale uu dawladdu ay sugtay rabbina uu garab galay dadkii nolol bay raadinayaan dhaqanka Soomaali dhaqan iskuma haysato diin iskuma haysato colaad kalena ma dhextaalle waxa dhex yaala awoodda dawladda sideeba loo organize gareynaya oo loo wadaagaya anigoo ka soo jeeda Soomaaliland joogana mas'uulna ka dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay Soomaaliland oo isku dhan oo isku dheelitiran oo isku afkaara in lagu soo dabaalo xayndaabka qarannimada Soomaaliyeed oo iyagu aanay u soo guuran ama loo guurayna wax lagu wada wadaagayo position cadcad oo power sharing ay la yimaadaan بالمثلا federalismka hadda aanu ku shaqaynaa ma aha wax ka jawaabaya rabitaanka Soomaaliland afkaaraha ugu wanaagsan ee
يعني فكر option noqon kara loo baahan in laga fikiro waxa weeye alternative models of power sharing ma la iman kara intaasaan rabay marka labada dhinac inaan la wadaago dabcan jawaabaha hadda aadna siinaysan waa kuwa ku dhisan ama anagu baanu idin siinaynaa political correctness oo dadkii baa naga dambeeyay iyo inta halkaa laga fikirinaya xal sare loo gaadho way adag tahay dantaa inagu khasbi doonta inaynu wax isla meel dhigno Somaliland qodob kale ku darayaa haddii bariyaha qaar culimada adduunka wax ka qortaa ay u taqaanay Africa's best kept secret ama the oasis of democracy bariyahan dambe xaaladeedu ma qumana marka anigu maadaama deegaanka aan ka soo jeedo waxaan jeclaan lahaa iyada naftarkeedu intay dib isugu noqoto in haddii ay rabto inay model hadda uma hubo inay koonfurta Somaliland model ka dhiganayso waa anagan hadda one person one vote u kacayna in Somaliland's delayed democracy oo wiilkii labadii kun dhashay ama gabadhii oo maanta codeyn lahayd uu odaygii guurtiray markaa jooga weli fadhiyo ama aqalka hoose I don't believe Somalia inay Somaliland model ka dhiganayso haddii bariyaha qaar leedin ma jeeran jiray ilaa dadka Soomaalidu waa isku dhaqane inaad dib u soo yeegleeshaan oo aad halgan cusub bilowdaan bay dantu idinku kalifaysaa